xoogaa isbuurasho siyaasadeed baa jirta kooxo awal hore u wada socday oo hadda kale shaki xoogan uu bilowday taasna waxaa hormuud u ah isbedeladii puntland ka dhici jiray oo soo dhawaaday markastoo waqtigaa la soo gaarana sifa caadiya ayay iska tahay in kooxihii shalay wada socday inay maanta kala shakiyaan laakiin arrintan xoogaa zaa'id bay ku tahay maadaama 3 sano ugu dambeysay ay bahashan aad u huursanayd waxaa moodaa hadda inay si fiican u qaraxday soo dhowo cali waa hagaag waaye waa maasan tahay aan u galno si toosa marka magacaabidda iyo golaha wasiirada xalay uu ku dhawaaqay kursiga ugu weyn ee wasiirka maaliyadda xasan shire ku fadhiyay waxaa lagu tirinayay ragga aadka ugu dhadhow Siciid Cabdullaahi Deni maxaa loo maleynayaa xilka qaadista xasan shire cumrow aad baa umahadsantaha caliow wixii ka dambeeyey doorashadii 15 May ee ka dhacday waddanka gaar ahaan muqdisho doorashadii dowladda federaalka Soomaaliya waxaa aad u soo xoogaysanayay khilaafka iyo kala shakiga kooxda Aranjanka iyo madaxweyne Deni taasoo soo dadejisay yaa la isleeyahay in golihii wasiirada wasiirkii ugu awoodda badnaa xasan shire abgaal oo shaqo badanna u hayay dowladda iyo weliba Siciid Deni oo ah dhanka ciidamada iyo isku habeynta ciidamada iyo dib habeynta shaqo aad u xoog badan hayay lisma lahayn liiska golaha wasiirada laga weyn doonaa lisma lahayn laakiin arrintaasi waxaa buddig u ah caliyow su'aashaas si toosan kaaga jawaabayaa wixii ka dambeeyay 15 May doorashadii waa taagay Siciid Cabdullaahi Deni musharax buu ahaa doorashadaas uu ka qayb galay qolada Aranjankana waa ogeedo musharax aan Siciid ahayn bay taageerayeen oo hadalkii xildhibaan cali xoosh waa la socotay oo warayskii uu ka bixiyay magaalada Garowe hadda la socotay hadaladii uu Siciid iyo eedeyntii u jeediyay marka arrinta marka waxay ka dhalatay laba waxyaalood bay ka dhalatay doorashadii 15 May iyo 2024 doorashada soo socota ee Puntlandna qayb bay ka tahay arrintaas waa hagaag siyaasadda xilka qaadista xasan shire maxay isbedelaa Puntland ama siyaasadda guud ee Siciid Deni maxay isbedel ay ku keenaysaa wallahi wax badan bay ku keeni doontaa sababtoo ah nimankan awal Siciid ayaga awal soo dhisay 2019 qarash badan iyo lacag badan bay ku bixiyeen waana sababta xasan uu wasiirka maaliyadda u noqday heshiisyadii 2019 uu Siciid madaxweynaha uu ku noqday ayay qayb ka ahayd inuu xasanna uu noqdo wasiirka maaliyadda waana ogtahay oo wasiirka maaliyadda waa ka duwan yahay wasiirada kale oo waa ka awood badan yahay waa wasiirka dhaqaalaha markii madaxweynaha laga yimaado oo qofka labaad oo waddanka ah marka wasiirka maaliyad oo haddana ay u sii raacdo wasiirkii dib habeynta ciidanka iyo amniga oo ciidanka iyo saraakiisha xiriir dhow la lahaa siyaasadda marka wax badan bay arrintaasi siyaasadda Siciid Cabdullaahi Deni saameyn culus bay ku yeelanaysaa laba arrimood baana meesha yaala Siciid marka cajal waxa u daaran oo ah one man one vote inuu Puntland gaarsiinayo halka qolada Aranjanta iyo qolooyin kale oo ku dadbanna 2024 ilaa 66 oday iyo baarlamaankii traditional electionkii baa dib loogu laabanaya marka siyaasadda Siciid Cabdullaahi Deni dhaawac culus baa gaaraya simple waa hagaag maxamed cabdiraxmaan dhabancada loo magacaabay wasaaradda maaliyadda ee Puntland isaga kuma cusba golaha wasiirada ee deegaanka maamulkaasi wasaarad kale laga soo bedelay maxaa laga yaqaanaa dhabancad galgalka Siciid u dhawaashihiisa intuu gaarsiisan yahay wallahi dhabancad waa nin horta Siciid Cabdullaahi Deni ay saaxiibo dhow yihiin oo aad ugu kalsoon yahay markii Aranj ka yimaado waayuu ugu dambeeyay wasiirku wuxuu ahaa aadka ugu dadban oo uu aad ula tashan jiray ayuu ahaa Aranjankana aad bay suspect uga qaadeen oo waxay yiraahdaan waa ninka Siciid seexiya waayuu ugu dambeeyay isaga ayaa seexin jiray oo ugu dambeyn jiray golihiisa wasiirada laakiin dhabancad markii la eego gobolka uu ka yimi mudug miisaan siyaasadeed oo xoog badan kuma lahan odayaasha iyo dhaqanka ee gobolka mudug miisaan siyaasadeed kuma lahan laakiin dhanka Siciid Cabdullaahi Deni markii la eego waa saaxiibka ugu dhow hadda uu qariibsado way dhanka siyaasadda way sababtaas keentay in wasaaradda maaliyadda uu ku aamino dhabancad uu wasaaradda arrimaha gudaha uu keeno xasan shire xagee laga filayaa inuu ka buskiciyo xasan waxaa laga filayaa de kulley hadda dhaqdhaqaaqyo badan baa bilowday karkii siyaasadeed baa bilowday 2024 wax badan oo Puntland ka qaldamay hadda waxay ka shaqeynayaan
in siciisii dusha looga saari lahaa oo ay yidhaahdaan innii barii'u minkum markii mataqaanaa shaydaanku uu mataqaanaa uu bini aadamka fidmeeyo wuxuu yidhahdaa innii barii'u minkum waxa weeye innii akhaafu allahu rabbulcaalamiin buu yidhahdaa anigu beri baan ka ahay waxaad samaysteen ilaah baan ka cabsanaya buu shaydaanku yidhahdaa marka qoladii aaranka hadda waxay taagan yihiin wixii meesha ka dhacay puntland oo revolution ahaa dhacdadii boosaaso ka dhacday shini soomaaligii istaagay kacdoonadii mudaharaadadii waxa laali wixii dowladda federaalka siciid bay keli ku tahay marka anigu ka fikir ahaan hadduu fikri weydiin lahaa waxaan odhan lahay siciid waxay ahayd inuu xasan ama qolada arjaanka inuu xukuumadda kusii hayay ahayd laakiin hadda fursad ay ku mucaaradaan oo ay bannaanka uga baxaan oo wixii khaldamay ee dusha uga saaraan isagaa sii baan leenaa ma garan waayahay intaas aan ku ekeyno waxaan rabaa wax yar inaan ka tiraahdo cabdi faarax juxa wasiirkii arrimaha gudaha ee federaalka dowladdii farmaajo ayuu dani ka dhigay arrimaha gudaha ee puntland isagu maxaa galaangalkiisa isaga iyo siciid laga ogyahay juxa waa nin oday horta nin aad u wanaagsan weeye caqabado badan baa horta juxa haysta wasaaradda la geeyey marka aad fiiriso waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda weeye dimuqraadiyiinta waana sababta loo geeyey dimuqraadiyiinta maadaama juxa uu yahay reer ka soo jeeda gobolka nugaal oo reerkaa taraha sugaya baashu waa la kala taraystaa si tarihii markii uu siciid dani u dilo oo one man one vote loo hirgeliyo ayaa wasaaradda arrimaha gudaha juxa loo geeyey si meesha tarihi uga baxo oo 47 degmo oo haray la 3 degmo la qabto tijaabo ah 3 degmo ku tirsan xisaabto hal sano ayaa socotay resultigooda iyo qorshahooda soo ku soo dhamaan lahaa 47 degmo marka imise qaadan ka dhaaway marka waqti aad u badan bay qaadan kartaa halka marka waxa ka soo bixi kara siciid inuu raadinayo extension ama waqti inuu ku darsado yuu raadinayaa juxa marka waxa loo keenay waxa weeye nidaamka dimuqraadiyadda in hore uu sii wado laakiin caqabadaha juxa haysta waa nin fiican waa nin odaya laakiin isagu dhaqanka iyo odayaasha xiriir fiican ma lahan waa nin madani taasaa waxay keenaysaa caqabad in nidaamkii one man one vote ee wasaaradda arrimaha gudaha ay socodsiin lahayd oo ay juxa ku adkaato inuu socodsiiyo iyo hankii siciid dani u ahaa inuu mataqaanaa qoladii aaranka uu ku dilo juxa inuu ku dilo su-aasha ugu dambaysa karaash iyo dani xaaladoodu xaggee kala joogtaa wallahi karaash iyo dani de waa isku soo agdhaceen danina waa tuu 15 May oo xamar kusoo dhiig baxay karaashna de waa hawshooda waxa lagu dhamaystay warhaymeyd qaraacine gacmaha gelajir hoos baa loo wada dhaqaay waxayna hoos oo wada dhaqano kulay odaga karaashna waa yeelay oo maadaama odagu uu xamar kusoo dhiig baxay dagaalo badan hadda ay ku fureen dani marka karaash inuu hadda furin kale uu ku furo way ku adkaatay wayna iska heshiiyeen dhexdoodana hadda kulay wixii 2024 loo gaar garamayno laakiin hadda xaaladdu hadda waa stable wax dhexdooda dhibaato ma jirto cali Umar Xaaji Kashawiito arrimaha siyaasadda aad ugu falanqooda xilka qaadista Xasan Shire iyo wasaaradaha kale ayuu ila falanqeynayay Umar Xaaji waa maasantahay saaxiib soo dhawaabo aad baa maasan wagaag waa mahad celinayaa qaybaha dambe ee barnaamijka xulka ayaan soo gaaray